arday ka baxday jaamacadda Hindiya ee magaalada Muqdisho ayaa cilmi baaris waxay ku sameysay tayadii aqooneed oo ay lahayd jaamacadda ummadda Soomaaliyeed. markale Cabdicasiis Ibrahim Okay ayaa ka soo diray magaalada Muqdisho. ardayda dafcadda 32 ee ka baxday jaamacadda Badweynta Hindiya difaacatayna boogii jaamacadda ayaa cilmi baaris ballaaran ku sameysay tayadii aqooneed oo ay lahayd jaamacadda ummadda Soomaaliya. cilmi baarista oo ay ardayda ku sameeyeen tayadii aqooneed oo ay lahayd jaamacadda ummadda Soomaaliya oo ay soo bandhigeen waxa bandhigeedii ka qayb galay maamulka jaamacadda Badweynta Hindiya, aqoon-yahano ardayda wax ka barata jaamacadda Indian Ocean, Faisal Nuur Farax iyo Ayaan Xasan Maxamed oo cilmi baarista ku sameeyay tayadii aqooneed oo ay lahayd jaamacadda ummadda Soomaaliya ayaa soo bandhigay cilmi baarista ay sameeyeen. research workshopkeena wuxuu ahaa oo aan eegaynay waxay u taagneed waxbarashada jaamacadda ummadda Soomaaliya tayadeeda. lambar 2 siduu u saameeyay dagaaladii sokeeye dalka ka dhacay. lambar 3 tayada waxbarashada ognahay in ay tayo aad u sareyso. kuntii iyo kanaadkii waxaan u mahadcelinayaa Allah subhanahu wa ta'ala oo maantay ii suurtageliyay inaan halkaan ka soo jeediyo cilmi baaristii aan soo sameeyay. aan soo jeedinaynaa in la hormariyo manhajka waxbarasho ee jaamacadda ummadda Soomaaliyeed. qodobka labaad in dhammaan jaamacadaha private-ka iyo public-ka ee ka jiro ee raacaan standardka xoojinaya saddexda qodob ee soo socda. A, teaching inay xoojiyaan. B, research. C, library. intaasoo muhiim ah ardayga markuu qalin jibinayo. aqoon-yahanadii wax ku soo bartay jaamacadda ummadda Soomaaliya oo ardayda dafcadda 32 ee jaamacadda Badweynta Hindiya ka baxday boogii jaamacadana difaacday ayaa soo dhaweeyay sida wanaagsan oo ay ardaydaasi cilmi baarista u soo bandhigeen. cuntada iyo jiifka iyo qubayska iyo buugga iyo macalinka intaas ay lacag la'aan tahay. anigu daada aan joogo iyo wixii aan akhriyay min caalamka kuma soo arag meel ay ka jirto. buugna kama akhriyo haddana ma ogi meel ay ka jirto. hadda qofkii ogi waa sheegi karaa adduunka oo dhan horumar kasta ay samaynayaan dhaqaale kasta ay hayaan wadan intaas oo lacag la'aan ay ka jirto arday ku dhigato buugna ka akhriyo maysaan haddana meel ay ka jirto qof sheegi karaa ma jiro. ugu dambeyntiina gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda Badweynta Hindiya Indian Ocean Professor Cabdiqaadir Maxamuud Cotosh ayaa madasha ka hadlay. cilmi baaris lagu sameeyo inta fakatay ahayd mid walba qaybta ay shaqo ku leedahay waa tahay mid beeraha ku sameeya mid xoolaha ku sameeya mid marka iyadana waxaa badanaas qaybtan soo dareenka ka hortaagnaa xagga amniga oo aad u liitay horumarka jaamacadaha xataa isaga hortaagnaa qabaa. Cabdicasiis Ibrahim Axmed Okay TV-ga Universal magaalada Muqdisho.